السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة إسلامية مانتا وحي إدين سو قد بنيسا درسي كوئية طبنات الله صدره قبيلك كان وحي لين إلى رسولك سيو علم أنه بحنه يدينه النبي قلنا كمفر سنين الدين بربرة بلتنا طبق إننا الله صدره الله وبركة هريرا إلى أدين علماء نربناه علماء نمد الله صدره وير البالغ السوق هذا مركي وير البالغ السوق هذا ayuu meel sare ka koray saxaabigii loo jiray Caasi oo tobankiisii wata waxay yiraahdeen markay arkeen inaan hore u yar kaban karin aan heshiino gaysdiiba wax dagaalayo waxba tooraydu ku sameeyeen Caasim ibn Thabit ningeesiyadii waaweynaa kamid ahaa maalintii Uhudna rajii ugu dagaalka adkaa nimankii dhowrka ayuu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam ku Khalid Saftis markuu Ali Saftis ka warramay nimanku sheegay buu kamid ahaa Caasim ibn Thabit wuxuu yiri war anigu dima gaal ma gala buu yiri isma dhiiba gaale ama saan ugu kala kaxay ama way istileynaa laakiin haba yaraatay ma isdiibayo wara tabanni wuxuu wataa iyaguna waa laba boqol mid waa la dagaalamay markaasi dagaalkii markuu dhacay waxay dileen Caasim iyo 6 kamid ah dagaalkaas bay ku shahiidoobeen idin Ilaahi ta'ala saddex nin baa soo haray saddex diinina kale hadana waxay dhahdeen isdiiba waxay way isdiibayna ballan noo qaado ballan bay la galeen in amaan la siinay hadii isdiiba dabeetana way isdiibeen markay isdiibeen bal labadii hore ayay gacmaha qaasada xadhigeedii inta ka soo fureen ayay ku xireen dabeetana waxa uu ninkii saddexaad arkay iyagoo qaasadii ragii kala la xidhiidhayo wuxuu yiri ka awada Abdullah ibn Tariq ninkii loo oran jiray وغدركي كواد أسميسان وخيامة لماذا أسميسان وديدي دبتنا إنه سديبه ودقالمي سنا إنه راعوا ديدي سنا ويكتخلصين وحي مركا محموس نما وخيان خبيب بن عدي يزيد بن دتنة لماذا أنهم أي محموس نما الله سوق بصده لماذا إننا محموس نما الله سوق بصده ما يسوق عاته sideedii kale saxaabina way dileen labadii ay maxbuusnimada u soo qaateen waxa maqashay Quraysh dabeetana Quraysh baa soo raadsatay yana waa la soo doonteen Maka ayay la yimaadeen iyagoo leeyahay laba nin baan idin haynaa inaga iibsada oo ragii waaweynaa la idinka dilay u dila badar ragii la idinka dilay waa arguda labadii nin خبيب بن عدي وحي بسلير بن حارث الحارث بن عامر بن النوفل وحا وكمدها رجي بدر لقد لي ولبوح الله تري يا خبيب كانت لي على كل حال خبيب بن عدي والله أعطى واحد أهمالتي بدر أطحي نكا سواد لي أنك أيها محبوسني موي بسني محبوسني ما أيه وحيستين ننكي كلنا صفوان بن أمية من الخلف وإسنا لقد لي بدر أي إلى أنك كلا أبا إبان وقد لي يا إيجابية لما غير بالإيجابية وحل إلى خبيب بن عدي ومحبوصة ومدلة هي أي مركي تنبوها يسكر راعين غيركي هيئين لديله لكن وحل يسكر راعين لقى ربحه حرم كان وحل قد لنا تنعيم إن لربطه هالكاسي لقوش يديله إسا روحنا ayaa waxa la yiri wuxuu gabadhi waqtigeeda ku xidhnaa wuxuu weydiistay muus oo ku soo xirxirto deetana muuskii bay siisay muuska waa midii isagoo haysta ayaa ilmo yar ay dhashay oo ayuunba soo cararay inuu isaga yimi gabadhi way naxday markaa deemin dil baa loo sii wadaa hal wiil oo kale isagoo mid haysta uu yimi deetana waxay tidhi ka yar kalena uu birayn doona way naxday way gareertay wuxuu ku yiri ma waxaad ka cabsi qabtaa inaan ilmaha yar dilo ma dilayo buu yiri kan yaree ilmaha yar haysta waxay oran jirtay ma arag bay tiri wali maxbuuska khayr badan kaas ilmihiina ka mudilin intaanu maxbuuska waxa kale arki jiray bay leedahay isagoo canab iyo iyadoo makaba maalmahaasi canab oolin midaba aanay oolin isagoo canab cunay yani min karaamaati bay kamid ahayd baa la ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo maxbuus soo ugu xidhan ayuu arzaaqi u iman jirtay aan ahayn baa la ilaahay wixii lagu cuni jiray Maka way soo saareen ala kulli haal waxaana ay soo saareen dabada iyagoo raba inay dilaan
وكل إنتيدني دلين إيه أقول هذا إن الله برك عدوت كذا أقول أقول لي بالليل الله برك عدوت هو استاجي قريش وما كارتين للدلو دمر يعرضي وحي وصابه كان باب ماشي ولا تعجب بحجوكته دبتنا الله برك عدوت السنة قلت كذا ساعد تصحيح المام سوانك يقول ريجي ديه عند القتل مركز الدنيا يقصدون ولا برك عدوت السنة كذا مركونا ما يستينا وفقولي لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت هدانا كعب ثقة من بولي إن هو أركتان صلاة أن تكون هي الضقع هي نلاش كل رئيسه تكون هي هدا أنا نتلحين والواقع صلاة غير بان تكون لها بولي لكن واحد نسوى خفيفية واحد سري واحد بولي دورها إن الجريدة كعب صانش كذب أيوه انتو حقا حضارة كيري اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا يبددا لبدا بوا لسور بي ولا تبقى منهم احدا انتو الى ايوه قبي تري طبعا معروف وداير لقد اجمع الاحزاب حولي والفوا قبي كما كاو حكو تري بيدت اي كمتي ما ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي على أي شق كان في الله مضجعي لبدا ولا سأروريا وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشلو الممزعي دبا يبتريني أولي هاي وما أبي ليه مرحدي إسلام نما أنا مسلم اللي يدي ليه لبدا دينا دان كان دولك أغوه الرئيسية واسو خيمي أولي هاي مرحدي إلهي درتي اللي يدي ليه إلهي هدو دوننا hilib la googoyo la kala tuuray ayuu barakeeyaa yani isagoo gabay tirinaya markaasi uu ku tilmaamayo inaanu geeridana ka baqaynin danna ka lahayn islaamnimo mar hadduu u dhimanayo gabayga waxaa ka mid ah waqad khayaruu lilkufra walmawta duunahu waxay kala doorisiiyeen gaalnimo iyo geeri ka sokaysa marka waxaan doortay buu leeyahay geerida ka sokaysa gabay runtii aadu في عن أيوتري صحابي كان أن رواية كقارقود وحيت المامان أبو سفيان بابك سؤال ويدي أولي هاي ما تشعش هاي ما أنت إن محمد لقوه بدله محمد لقوه بدله ما تشعل الله يعني هل كانت كتشرته إن ما أنت محمد كتشره نبي محمد عليه الصلاة والسلام بشيء وأذكرنا فرط هاي محمد ما هل كان هاي سيدا ما تشعل الله هاي dabeetana wuxuu ku yidhi in aniga halka laygu bedelo daaye ma jeclaadeen buu leeyahay isagoo gurigiisii jooga in qodaxi muddo oo aana laysii daayo yani nabigu calayhi salaatu wasalaam in qodaxi muddo ayaana raalli ka ahaadeen adnaha lagu sii daayo isna qodaxa lagu mudo haddii la yidhaahdo waxaan dooran lahaa buu leeyahay in aniga laydilo isagana aanay maxay qodaxdu mudin taas baan dooran lahaa buu leeyahay markaas bay dileen dabeetana way salbiyeen intay dileen ayay haddana saliibka u xidheen saliibku waa macatab oo kale qofka in loo xidho la daldalo yani inta la dilay inaan la aasino qura in la daldo si dadka ka dambeeya ugu yani dhimashadiisii baa lagu rabaa in dad lagu bakageliya macaynkana saasay kaga tageen zayd ibnu dathina ninkii la odhan jiray kale la socday isaga safwan ibnu umaya baa isna iibsaday isna wuxuu u dilay aabihi riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan waa zayd ibnu dathina ninkan la weydiinayey ee lalahaa ma jeceshahay in انشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك لها والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه الشوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي سكستان نقطة وحل إلى أبو سفيان وحيد ولي ما نرق بودي دول من أصحابتي سؤال أجع الشيء سيدي محمد أجع علي ولي وحلا ماذا ما نرق بودي مثلا يعني سوى محمد أجع علي عيدا أجع علي من عيدا كيسو سيدي أجع علي ما نرق بودي محمد مو يعني markay qadiyadani dhacday kadib waxa la yiraahdaa Quraysh wax isku dayday qisaska ama ashaab taariikh waxay soo arooriyeen waxay yiraahdeen war hal raadiye meydkii ninkii caasimna
laakiin waxay dhahdaan meeshii markay tegayeen xagga alle subxaana watacaala baa looga soo diray ciid ilaalisa oo dibirlax baa halkan la yidhaahdo xoonka ayaa ku soo baxay oo meydkiisii loo dhawaan waayey waxaa la yidhaha cumar baa markii oo dambe odhan jiray ilaahay qofku yaxfadu allahu lcabda almu'min bacda wafaati kama yaxfadu fi xayaati yani addoonka mu'minka ilaahay waa ilaaliya geerida dabadii siduu noloshaba uu ilaalinayay calaa kulli xaal qadiyadda tan iyadoo cusub oo nabiga loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa isla bisha gudaheedii macsaata labaad baa muslimiinta ku dhacay aba camir ninka la yidhaahdo ayaa yimi waa abu bara camir ibnu malik baa la yidhahdaa malaacib alasina ayaa lagu magacaabi jiray ninkaas baa yimi baa la yidhi madiina dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamnimo uu soo bandhigay islaamnimadii loo soo bandhigay ma fogaynin mau islaamin mana fogaysanin laakiin ra'yi kaluu soo jeediyey wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo maad cid u dirtid reer najid iyo halkan tolkay degan yihin maad cid diinta ugu yeedha bal iyagana maad u dirtid reer najid waa tolkii wuxuu ku yidhi reer najid waan uga cabsi qabaa wuxuu yidhi aniga ayaa ay jaarkayga ahaan doonaan ee reer najid cid u dir nabigu calayhi salaatu wasalaam 70 saxaabi oo almundir ibnu camar uu madax u yahay ayuu najidna u diray ibnu isxaaq 40 buu leeyahay laakiin saxiixa saasa ku sugan 70 saxaabi ayuu diray oo loo diray najid iyana inay diinta usoo sheegaan weliba 70 kan la diray waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid ahaayeen khiyaari lmuslimiina wa fudalaa'ihim wa saadaatihim wa quraa'ihim bay ahaayeen baa la yidhahda saxaabada raggii ugu fiicfiicnaa quraa'da ahaa ee qur-aanka xoogga u akri jiray waxaa la yidhaha raggan waxaa ka mid ahaa rag baa la yidhi maalintiina cilmigay daraasayn jireen habeenkiina way cibaadaysan jireen madiina intay ka baxaan baa la yidhi way xaabo iyo intay wax soo guraan oo iibiyaan ayay haddana ahlu sufihii joogi jireen masaajidka nebiga ku sadaqadaysan jireen marka waxaa la yidhaha niman cibaado iyo camal iyo sadaqo iyo wax walba u xidhnaan jiray bay ahayn baa la yidhaha raggaas buu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam 70 ka reer najid baa loo diray inay diinta soo gaadhsiiyaan oo ay uga soo warramaan 70 kaasi saxaabi ee uu hogaaminayo almundir ibnu camar markii la soo diray oo ay najid u kaceen waa meel 160 kilomitir meelahaasi madiina u jirta iyagana waxaa qadar ku sameeyey nin la yidhaahdo camir ibnu tufayl waxaa la yidhaahdaa waxay u direen nin saxaabiya oo la odhan jiray xaraam ibnu milxaan ayaa loo diray caamirkan oo la soo hadlo waraaqdii nebiga iyo qaabkii nebigu rabay in loo geeyo ninkii markuu u yimi uu warkiisidii u sheeg ayuu mid diro wuxuu yidhi intu xaggayga socodiyo xagga dambe waranka geli saxaabigiiyo markaasi rasuula dhaqankuna waxaa rususha inaan la dilin ergada inaan la dilin ergeygiiyo meesha hor fadhiya ayay intay xagga dambe kaga yimaadeen ay dhabarka waranka soo geliyeen wuu qayliyey baa la yidhi isagoo le allahu akbar fuztu warabba alkacba buu yidhi fuztu warabba alkacba ilaahay baa weyn buu leeyahay waan guulaystay rabbiga kacbadaan ku dhaartay ana guulaystay raggani jannay wada raadinayeen marka wuxuu leeyahay ilaahay dartii baan ana u dhintay fustu warabba alkacba ayuu leeyahay ninka waranka la geliyey dabeetana qabaa'il wuxuu yidhi qoladan ay isku tolka haydeen hore kuu soo raaci maysay qabaa'il meesha degan oo reer bani sulayma ayuu u yeedhay gaar ahaan racal iyo dakwaan iyo asaya niman la yidhaahdo kooxdaasu isugu yeedhay dabeetana weerar bay ku qaadeen 70 kan saxaabi 2 saxaabi baa maqnaa baa la tilmaamaa oo ninkii la odhan jiray camar ibnu umaya addamri iyo hal saxaabi oo kale ayaa maqnaa baa la sheegaa oo iyagu ku maqnaa xoolihii ay wadeen ayay la joogeen 68 kii kaleba way dileen 68 kii saxaabe kalena halkan baa lagu dilay waxay arkeen iyagoo labadan saxaabe iyagoo ay dhacayaan haado ayay arkeen baa la yidhi meeshii ay haado ku dhacayso
dabeetana waxay idhahdeen war bal meesha aan ka war doonno saxaabigii horaa yimid isna wuu dagaalamay isna waa la dilay kii 9 wuu dhintay waxaa la yidhahdaa Camar ibn Umayya Damari isaga waa la qabtay markii la qabtay isagana maxbuusnimo loo hayo ayaa nimanka nin ka mid iyo wariyaa tahay baa la yidhi wuxuu sheegtay dee ciddii u ahaa markay arkeen ay yidhahdeen ninkan qabiilkan iyo nin diline mid iyaga ka mid ah wuxuu yidhi hooyaday baa lagu lahaa raqaba in la xoreeyo intuu madaxa ka jaray timaa ayuu yidhi soo adiga waa ku xoraynaya saxaabigaasoo qura ayaa ka soo baxay meel dhexuu iska soo maray dhexda markuu marayay ayuu isna qola la kulmay labadii qoladii laba nin oo buu la kulmay labada nin wuxuu yidhi waa qoladii bay ka tirsayiin labadii buu isna sii dilay dabeetana wuu soo dhaafay culamada taariikh kooxuu soo laalaayay bay sheegaan qaarkood yani ahlu siyarka qaar ka mid ilaa 7 iyo waxbay sheegaan 9 iyo meelaha kolba meel ku gabanayo kolba koox leynayo gaadagaadeeyo aakhirkii wuu yimid laakiin hadal ya dhammaan labada nin ee uu soo dilay waxay ahaayeen qolo nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiis la gashay oo xilfi wadaagay soo wada galeen idan cid mucaahada laba ka mid ah oo uu moodayo inay ka mid yihiin qoladii gaaleed ayuu isna soo dilay marka ay qadiyadaasi timina wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaasi iyaga waan ka bixinayaa magtoodii waan bixinayaa haddaynu u fiirsano labadan qiso ee dambe waxay sheegayaan islaamku inaanu ku faafin dhul nabada iyo wax sheego saxaabadana inaanay u dhibanayn oo qura dagaal inay galaan iyadoo dhulkaa khatarta alla joogo oo saa la isu gumaadayo ayaa haddana loo baxayay dacwo nabiguna calayhi salaatu wasalaam muu lahayn oo keliya meelaha khatar ba ku jirta ama wacaynkanoo cidna u diri maayo iyadoo waxaasoo dhibi muuqdaan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dacwaadkaasi diray wax kaloo meesha ku jirto aad arki doontaan ma meesha inooga wada muuqataan dadka diinta wada iyo dacwada in ay dhici karto in la khiyaameeyo maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta la yidhaahdo ciidan noo soo diro oo diin baanu sheegina waa kan la gowracayay inay dhici karto wax kale idan iyadoo waxaas oo dhibi taallo ayay dadkani islaamka faafinayeen diinta sheegayeen meel aan loogaga gabanaynin waranka marka la geliyana ay lahaayeen fustu warabba alkacba isagoo waranku gelayo ayuu u arkayay inuu guulaystay intan kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey in uu beder sanadkii kale dagaalkii loo ballamay waataynu nihi waxaa lagu ballamay sanadka soo socda abu sufyaan iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam uxud markii la joogay sanadka dambe iyadoo beder weeyaan baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa ciidan 1500 gaaraya ayuu soo saaray oo 10 faras meelaha wata oo cali ibn abi aalib uu wato isagoo raba inuu ka hortago ciidankii abu sufyaan iyo kooxdiisa ay ku soo ballameen abu sufyaan iyo ciidankiisiina way soo baxeen ilaa 2500 oo nin isagoo wata laakiin abu sufyaan uu ka cabsaday inuu muslimiinta mar kale la kulmo meel dhexe markuu marayay ayuu dabeetana dib isaga soo noqday dagaalkaasi muu dhicin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo gaadhsiiyey wararkii ay u yimaadeen sheegayey labadan kooxood ee saxaabada laga dilay wuxuu bilaabay inuu qabaa'ilkaasi habaaro oo ku habaaro waliba salaada gudaheeda sida axaadiista saxiixa ku soo arortay 30 maalmood ayuu salaada subax nabigu calayhi salaatu wasalaam real iyo dakwaan iyo laxyaan iyo cusayr waa qabaa'ilkii labada kooxood dilay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku habaarayay salaada gudaheeda 30 maalmood ayuu ku habaarayay waana qunuudkuba halku ka bilaabmay bay culamadu yidhahdaan qunuudkan la qunuudo salaada subax waxay ku timi baa la yidhaahdaa masaladaasi ah in uu habaaro qolyahaasi oo salaada gudaheeda uu ku habaaro isagoo ilaahay weydiisanaya inuu kuwaasi laayo ama mariyo ilaa iyo bay saxaabadu sheegaan in qur-aan ka soo degay nimanka kan qur-aankaasina markii dambe la nasakhay macnihiisuna uu sheegayay baliغuu cana qawmana ana laqiina rabbana faradiya cana waradina canh
markaas nusuustaasi soo degtay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam joojiyey habaarkii uu habaarayay qolyaha kan. isla sanadkan wakhtiyadatan ama sanadkan afraad ee lagu jiro waxaa soo degay tashriicii khamriga joojinayay, khamrada sharcigii joojinayay ayaa soo degay baa la ydhahdaa siduu balaadari sheegayo, oo yani nusuus qur'aana oo sheegaysa inuu khamrigu mamnuuci, iyadoo khamriga markii hore la cabi jiro oo masmuux ahaa, haddana qur-aan uu soo degay laleeyahay waktiga salaada ku jirtaan idinkoo sakhraansan ha cabina, laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquluun la yidhi ilaa ayaa ka garanaysaan waxaa ku hadlaysaan salaada aad tukanina. kadibna waxaa soo degay nusuus qur'aana oo sheegaysa inaan loo dhowaanin, dabeetana saxaabadu way aqbaleen waanay fuliyeen. waxaana la amray in la burburiyo xataa weelkii lagu samayn jiray, weelashii oo dhanna waa la burburiyey. magaalada madiinana muddo aada u badan baa la yidhaahdaa ayaa qurmuunkii khamriga wadooyinka la qubay uu ka urayay oo uu yaalay. waxaana lagu joojiyey aayad qur'aana oo ilahay leeyahy subxaana watacala inama alkhamru walmaysiru walansaabu, yani aayad keliya soo degtay oo laleeyahay ka taga, dabeetana way ka tageen. waa qadiya runtii qadaaya tarbawiya oo u baahan dadku inay daraaso badan u yeeshaan. bini aadamka waxa wax ka celin kara waa damaa'irtiisa iyo qalbigiisa wax ku jira. askarta iyo qaanuunka waxba ma celiya. askarta iyo qaanuunka de iyagubaad iska eegaysa maalinta aan maxkamad lagu geyn karin ama aanu askarigu ku arki karin waxaan waad samaynaysaa dembigu doonaba ha ahaadee, laakiin waxaad rumaysan tahay in ilaahay subxaana watacaala ku taalacanayo oo iimaanu qofka ka joojiyo ayuunbaa joogsada. walidalik dunidu in badan ba isku dayda in khamriga la joojiyo, xataa dawladahan maanta dunida xooga u sheeganaya maraykanka iyo nooca kale qawaaniin badan bay soo saareen ay khamri ku joojinayaan, laakiin may suurtagelin. markii loo taag waayey tamardarri daraaddeed unbaa loo fasaxay. khamriga maanta dunida looma cabo inuu yahay wax caafimaad ku jiro ama khayr ku jiro, ee waa tamardarri, waa la mamnuuci kari waayo. wax kasta oo la mamnuucana noocan unbay aakhirka ku dambeeyaan. idan haddii la rabo waxa xun oo dhan in la joojiyo waa in dadka iimaankooda wax laga bedelaa oo qulubtooda wax iska bedelo, dadka ilaahay lagu xidha. dadku markay ilaahay ku xidhnaa waxa xun iyaga ka tegaya, qaad iyo khamri iyo sigaar iyo qurun oo dhan iyaga dhaafaya. laakiin qaanuun la yidhaahdo waa la xidhxidhaya ama waa la qabqabanaya, inta badan dadku kuma daayaan waxaas. isla waxaa la yidhahdaa sanawaadkan waxaa soo degay nusuustii xijaabka waajib yeelaysa ee haweenku inay xijaabka qaataanna sanadkan ayuu iyana soo degay baa lagu tilmaama. markaynu intaa kusoo koobno waxyaabihii sanadka soo degay, waxaynu kaloo tilmaami karnaa ghaswo kooban iyana oo ah ghaswadii reer banu nadiir dagaalkii lala galay. reer banu nadiir dhowr sababoodba waa la sheegaa sababtii dagaalkooda keentay, laakiin haddaan iska soo koobnayana iyadoo kooban unaynu sheegno waxa ugu weyni wuxuu yahay laba sababood baa la sheegaa. waxaa ka mida labadaas sababood labadii nin ee uu soo dilay ee saxaabiga kan u dambeeyey ayuu ula tegay magtoodii inay la bixiyaan, waayo heshiisyadii madiine waxaa ka mid ahaa in waxaasi la wada bixiyo. dabeetana magtii buu ula tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay la bixiyaan reer banu nadiir. iyaguna waxay isku dayeen in fursad baa jirtay, waatan carabtii kalaba saxaabadiisii laysay rajiic lagu laayay 10 nin, bi'r macuuna 70 yani 60 nin kusoo dhinteen. waxay yidhahdeen inana haddaynu jaanis leen ka gaarsiino, inana isaga baan ka takhalus. nabiga calayhi salaatu wasalaam aan isaga laftiisa ka takhalus. waxaa la yidhaha nebigu wuu yimi isagoo weydiisanaya in qadiyadaasi laga taageero. dabeetana waxay yidhahdeen waa hadal fiicane soo fadhiso. meel baa la fadhiisiiyey. intuu meeshii fadhiyey baa nin la diray. waxaa la yidhi camr ibnu jaxaash nin la yidhahdo war kor xagga sare kor, dabeetana rixaagan weyne wax lagu daqiijiyo dusha kaga soo hayna dhaafo ha dhintee. riwaayaadka taarikhdu say sheegayaan ilaahay baa markaa uu soo waxyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa u ballan qaaday isaga in la ilaalinayo, inay damacsan yihiin inay waxkan ku sameeyaan. wuu kacay sidii wax baxay oo kale dabadda uga baxay, dabeetana kuma soo noqoninba. maca abubakar iyo cumar iyo saxaabadii la joogtay daa'ifadii soo raacday cidna umuu sheegin, wuu yaro kacay un sidii wax dabadda u yaro baxay oo kale. dabeetana wuu dhaqaajiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, kumuu soo noqonin. wuxuu ku soo noqday isagoo markaa ciidan wata.
محمد بن سلمة ninkii la oran jiray uu hogaaminayo ayuu reer Banu Nadiir u soo diray la rabo in magaalada laga saaro qoladii munaafiqiintiina way soo tagtay waxay dhaahdeen Abdullah ibn Ubay ibn Salul ayaa dee la ahaa xilka wadaag wuxuu yidhi bixina anaa idin gargaaraya aniga isku kay halay haddii la idin saarana waa idin la baxaya haddii aad dagaalantaana waa idin la dagaalamaya وكي لا يقرأ ورمي لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ولا يشهد إنهم لكاذبون آيات كسوى أنك الله كذا ورمي سبحانه وتعالى markay maqleen warkii ninkaasna way sabkeeyeen waxay dhahdeen ma baxayno nabigu wuxuu ku yidhi guura magaalada ka taga dabeetana ninkan baa war u diro yidhi waa dagaalamaysaana ay si dhiibin oo ka guurina magaalada ana idin la celinaya waxay markaasay dhahdeen waa ma baxayno waa dagaalamayna markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidan keenay dabeetana wuxuu ka qabtay square ayaa muddo laga hayay markii uu arkay inay isdhiibayaanna Abdullah ibn Ubay baa haddana soo caraba wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nimanka kani waa nimankii caynkana saan waxay tara caynkana halay sii daay wuu ku celceliyay nabiguna waa diiday akhiiran markuu sii dayn waayay nabigu calayhi salaatu wasalaam iska sii daayay nimanka kan waxa lagu heshiiyay akhiiran in ay ka guuraan magaalada oo ay ka baxaan waana nimankay ku soo degtay suuradan qur'aana suurat al-hashr ibn Abbas oo oran jirayba waa suurat an-nadir buu ku tilmaami jiray waa qolada ku soo degtay subhana lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-aziz al-hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim la wala al-hashr ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى آية كثيرة بدل سورة كاملة وإلهي سبحانه وتعالى أن مكان يدقى القوة كنت المامية إن ألقوا بحيي وحانا أي مودة ينبأ الله سبحانه وتعالى هذا ضفر صدوه يهود ما أنت شفت آدي سود الدوسي وآيات كان قرآن إلهي وحكوت المامية ما ظننتم أن يخرجوا بإلهي من كان حوق قد يعددوا يوحوا ذينك وحا لين سين بإلهي إن أنا بحين إيابنا محي ليني وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله بإلهي إيابنا وحي في الهايين حصون تينة أما قل عليه لكان يوحى تاني إلهي ويدك علمي laba ra'yi meesha yaal baa ilaahay leeyahay ra'yi waa ka muslimiinta badan ama dad badan ay rumaysnaayeen ra'yina waa ka iyagu rumaysnaayeen qolada yahuudeed waxay rumaysnaayeen qalcado iyo dhufaysyo iyo ciidamo iyo wax ku filan inay haystaan oo inaan cid bixin karin ay rumaysnaayeen qolada muslimiintina waxay rumaysnaayeen maxay inaan la bixin karin labada kooxood marka waxay isku raacayeen inaan la bixin karin ma danantum yakhruju bilahi وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله لكن إلهي وحليه فأتاهم الله من حيث لم يحتصب إلهي بوحو كغي من ميل أنا يغفلين بقالكم مركا ماديات كالحسابانية كارياشي هو كالحساب يغا حفظ دام مقالك بألا لي لكن إلهي وحليه فأتاهم الله من حيث لم يحتصب وقذف في قلوبهم الرعب إلهي بوحو كغي من ميل أنا يغفلين بألا سبحانه وتعالى قلبي يدو ضبقى ألا كليه بألا سبحانه وتعالى إذن دول كألا جبينيو سقا يقانا سوء جبينيو يعني إلهي سبحانه وتعالى عندما جبينيو سفضوا ضبه وشبان كوحدة طنة والله صاري يهود على المدينة ويقول إلا هذا أقول إنا إلاليات في السيسيريا إلا قاله ويربانوا قريضا الله ينهضوا انتي كلنا والله صاري مقالة المدينة وحانا يوكاتي markii uu saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidamadaasi waxoogaaga ah ee qabaa'ilkii yarraa lagu saaray in la jebiyey fikradii koowaad ee ahayd in madiina dib loogu duulo laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wali kama harin ciidamada badan oo kale ayuu haddana diyaariyey oo ghazwatu bani al-mustaliq iyo ghazawaad kale ayuu nabigu diyaarinaya calayhi salaatu wasalaam maanta halkaas baynu ku joojinayna wallahu aclam qurayda la yidhaahdo intii kalena waa laga saaray magaalada madiina waxaanay u akaatay markii uu saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidamadaasi waxoogaaga ah ee qabaa'ilkii yarraa lagu saaray in la jebiyey fikradii koowaad ee ahayd in madiina dib loogu duulo
waxaanay u ekaatay markii uu saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidamadaasi waxoogaaga ah ee qabaa'ilkii yarraa lagu saarsaaray in la jebiyey fikradii koowaad ee ahayd in madiine dib loogu duulo ama ghazwat lmuraysiic dagaalkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku qaaday nimanka la yidhaha reer banulmusaliq kutubta qaarkood ma yidhahdaan ghazwadii ghazwat lmuraysiic muraysiic waa ceelkay ka cabi jireen ama waa meeshay degaanka u lahaayeen musaliquna waa bani lmusaliqna waa qabiilka bani lmusaliq waa qabiil ka tirsan khuzaaca oo usdiyiinta iyo imaamida ah waxay degi jireen qudayd iyo cusfaan inta udhaxaysa waxaa la dhahdaa waa maka iyo madiina jidka udhaxeeya ayay degi jireen meel maka ilaa 120 kilomitr u jirta ayay qudaydda ku taallaa cusfaantuna ilaa 80 kilomitr macnaheedu waxa weya marka 40 kilomitr oo intaasi ah ayuu reerkani degi jiray iyadoo khuzaaca qabiilkan weyn ay ka tirsan yihiin dhammaantood ba ay marka hore ahaayeen dad dega maka iyo madiine dhexdooda waxaanay ahaan jireen fi ljaahiliya khuzaacada kale niman xidhiidh wadaag lale quraysh gaar ahaan reerkii nabigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam waxaanay inta badan ahaan jireen dad musaalimiin la ah muslimiinta oo wax dhibaato iyo dagaali ka dhaxaynin rubama markan dambe waxyaabuhu uga sii dhexen wayaan ay ka tirsanaydba qabiil ahaan waxay wadaagi jireen aws iyo khasraj oo aws iyo khasraj waxay isugu yimaadaan odayga la yidhahdo camar ibnu caamir oo ah awowga labaad ee aws iyo khasraj bani musaliqna waa awowgooda afraad yani qoladaasay markaa qabiil ahaan ayay wadaagi jireen waxaana jira runtii taxaalufaat iyaga iyo ka dhexeeyay baynu oran karnaa quraysh maadaama jidkan ay mari jireen waxa kaloo qoladan ay caan ku ahayd waa reerkii uu dhexdooda ku yaalay sanamka la yidhahdo manaaf waa manaafka thaalitata luqra ka ilaahay qur-aanku tilmaamayo sanamkaasi meesha ku yaallo ayay deganaayeen inta badanna markay u dhawaayeen degaan ahaan maadaama sanamkanna meesha ku yaallo qurayshna xidhiidho wanaagsan iyo waxaana ayla lahaayeen islaamka faafistiisa kuma badnayn waaga hore nimankaasi reer banulmusaliq la yidhaahdo laakiin mawqifkii ugu horeeya colaadeed ee qabiilkan iyo islaamka dhex mara wuxuu yimid dagaalkii uxud ayay ka mid ahaayeen dadkii axaabishta ahaa ee soo raacay quraysh oo dagaalkaasi kasoo qayb galay bay ahaayeen waataynu nina dagaalkaasi waxyaabuhu sababay raadadku ka tegay waxaa ka mid ahaa acraabtii ama nimankii qabaa'ilkii reer miyiga ahaa oo waxoogaa hunguri ka galay in madiine iyo timirteeda la weerari karo ama muslimiinta lasoo weerari karo marka waxaa la yidhahaa qabiilkan sida qabaa'ilka kaleba waxoogaa hunguri uga galgalay waxay isku dayeen iyaguna inay weerar soo qaadaan marka war baa nabiga soo gaadhay baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam in ninkii la odhan jiray alxaaris ibnu abi daraar waxoogaa ciidana iyo hub iyo wax isku ururiyey qabaa'ilka u dhadhowye waxaas dhan soo ururiyey oo uu rabo duulimaad inuu sameeyo dabeetana waxay culamaai taariikh sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo diray nin cayna ama nin basaasa oo usoo indhaindheeya oo saxaabigii la odhan jiray burayda ibn alxusayb ilaslami ayaa lasoo diray baa la dhahaa bal nimanka iyo axwaashooda inuu soo eegeego waanu u yimi dabeetana waxaanu soo ogaaday inay ku tala jiraan inay madiina usoo weerar tagaan si kasta haatay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa bishii shacbaan sanadkii shanaad ee hijiriyada laba habeen markay ka tagtay shacbaan yani shacbaan oo laba jirta ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo bilaabay weerarkan oo xagga kan usoo kacay waa sida raajixa uu sheekhu sheegaya yani culamadu waa isku yara khilaafsan yihiin sanadkay dhacday sanadkii shanaad bay dhacday mise sanadkii lixaad bay dhacday wallahu aclam waxaa raajix aad moodaa inay sanadkii shanaad dhacday weliba inay dhacday ghazwatu khandaq horteed sababtuna waxa weeyaan ghazwatu khandaq waxaynu leenahay horteed dadka ghazwadatan iyo muranadii ka dhashay ka qayb galay waxaynu ka arki doonaa inuu kamid yahay sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaadna waxaa macruuf oo laisku wada waafaqtay reer banu qurayda markii uu xukumay kadib inuu shahiiday mise geeriyooday
marka haddii la yidhahdo qaswadatani waktigaasay kasii dambaysa axaadiista bukhaariya sheegaya sacd ibnu mucaad iyo murankan inuu ku jiray waxaad moodaa inay iska hor imanayso sida awgeed waxaa la qaataa muusa bnu cuqba sida uu ka soo warinaya azuhri imaamu zuhri iyo curwa oo ah inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada yani qaswadan inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada waxaa kaloo soo arooray xadadkani siduu dhacay bukhaari iyo muslim waxaay ku tilmaamayeen inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkan weeraray wahum gaaruun iyagoo iyana weerar soo waday waxaa kaloo riwaayadka axaadiista saxiixeynka ka cad gaar ahaan bukhaari inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan soo weeraray iyadoo aan wax iclaama la ogeysin walidaalika culamadu waxay u daliishadaan gaaladu haddii kooxdani ay yihiin koox awalba islaamku uu soo gaaray inaanay u baahnayn iclaan labaad in loo sheego yani islaamku marka hore dadka duulimaadka kuma horeysiya waxa la horeysiya maxay iclaamka iyo islaamka sharxiisa iyo gaarsiintiisa marka qolada kan hore usoo gaadhay baa la yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan markuu soo weeraray kooxdani markii iyagoo aan filaynin buu kasoo duldhacayo dabeetana waxaa la yidhahdaa carabtii kale iyo wixii soo ororiye wixii oo dham way kala yaaceen riwaayadka qaar baa odhanaya dagaal baa dhacay laakiin waxay culimadu rajaxaan inaan meeshan dagaal ka dhicin oo nimankii reer balmusaliq ahaa inay kala yaaceen dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii inay qabsadeen xoolihii iyo wixii ay meeshan u yimaadeen yani dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii wixii la qabsaday oo dhan ayaa lasoo qabsaday iyadoo aan wax dagaali dhicin taasi waxay sheegaysaa markaasi in dadkoodii dagaalyahanka ay ka baxsadeen meesha xoolo badan bay sheegaan culamada taariikhda soo arorisa oo meesha tan lagu qabsaday maala inkastoo riwaayadka arorinayaanay saasi xoog badbadnayn waxay sheegayaan haddana ilaa iyo 2,000 oo neef oo geela iyo 5,000 oo neef oo adhiya xoolo gaadhaya iyo 200 oo reer wax gaadhaya in la qabsaday ninkii meeshan madaxda ka ahaa iyo kulley kuma jiraan dadka lasoo qabtay laakiin waxaa ku jira dadka lasoo qabtay haweentii uu dhalay ama inantuu dhalay ee jawayriya la odhan jiray ayaa ka mid ahayd dadkii maxbuusnimada lasoo qabsaday madiine ayuu nabigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam isaga oo bishii ramadaan ay soo gashay markuu muddo bil ah ka maqnaa baa la yidhaahdaa ama 2 habeen meelahaasa ka dhiman ba yidhaahdaa bil meelahaasi ayuu ka maqnaa waqcada tani waxay u dhacday markaa si fudud oo ah in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo guulaystay aan wax dhib oo dagaali la kulmin qabiilkaasina inay kala yaaceen qabiilkana in xoolo badan iyo dumar iyo caruurtiiba laga soo qaaday oo laga soo wada qabsaday wax mashaakil oo kalena markaasi dadka muslimiinta inaanay soo gaadhin waxay dhacdanay abuurtay waxyaabo badan oo raadada bay samaysay ka taariikh ghazwa marka la daraasaynayo ma badna waa inahaas ba iskaga kolantay muddo bil ku dhawaadana inuu nabigu maqnaa calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi muraysic la yidhahdana inuu tegey xoolihii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo dadkii joogayna in lasoo qabsaday meelada wixii kala yaaci karayeyna inay carareen laakiin qadiyadda tani waxaa la yidhahdaa waxay kaloo wadatay 2 qiso oo aad u caana ayaa waktiga kan dhacay labadan qiso waxay ka warramayaan dowrkay munaafiqiintu ku lahaayeen labadan qiso qisada koowaad waa qisada cabdillaahi ibni ubay ibnu saluul ayaa labadaba ka madaxa labada qisada qiso waa qisada suuratulmunaafiqiin kusoo degtay arrinta kalena waa arrinta aayaad ka mida suuratu nuur xaadisatul ifk dacdadii been abuurka waa xaadisada ay kusoo degtay haddaynu labadan qiso midba waxoogaa ka tilmaamno ka koowaad waa la tilmaamaa ceelkii biyaa laga cabayay nimankan horta dee waa tashadeen iyagu iyo sidii muslimiintan laysugu dari lahaa ceelkii biyaha laga cabayey ayaa muslimiintu u arooreen markay qaswadu dhamaatay kadib waxaa la yidhaahdaa nin shaqaalo oo cumar la socday oo jahjah alwasaari la yidhaahdo iyo nin ansaarta ka tirsan oo sinan ibnu wabar iljihani la yidhaahdo
oo laba nin oo iska shaqaala oo saa u xoog badnaynaya ku kulmay ceelkii dabeetana biyihii unbaa la isku qabqabtay nimankaasi afka ka yara xumaaday waa qayliyeen kii jahaniya baa qayliye wuxuu yidhi yaa macshar alansaar والله يا أنصار يا مديري كيف لنا يقول يا معشر المهاجرين مهاجرين تاي أيكو قيل يسون جهجهنا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام مركوادة المغليات وغريب سدي يسوى لها بالدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وأما دعوة موركي الجاهلية لا يسوع لسانا نقول تحدينا الشوغة دعوها فإنها ممتنة وارضاقه النبي عليه الصلاة والسلام وحنوا وحقري وضغط أريا كتبه والله يرغب ولا ولا في الأدم النبي عليه الصلاة والسلام وضغط أريا ضعف وحكم وضعف ويسكد يعني منك منافقين في مكة بين الكفة ودستان قضية بسان وأيضاك مسلمين تأسكد براه دبتنا وحمق ليبا الله يرعبا نكي لوريك شرين عبد الله بن أبي بن سلول والتعرف سوى كوح تلكي يلا فضيه وحماش فضيه بقى ويل يرى مسلمين تكملها زيد بن أرقم ويل يرى الله يرهده وإن يرى أي فضيه عبد الله يوادي مكم مقلوه في ذلك وقد فعلوها مصاصة إيالا المخي الله شاهد مهاجرين بس يريد مركز سوى ورب لنا هذا الوصفة حتى ذلك يرهده nimankaa waynu soo dhaweynay oo caynka maynu u samaynay oo waxbaynu siinay oo waa quudinay oo maanta inta kibreen bay yatlaay inagayna leeyihin nimanka taariikhda qora qaar ka mid waala ka xunxun baabay ka soo wariyaan waxay dhahdaan wuxuu yidhi wallaahi waxaynu taaganay halkii ninkii hore ka yidhi samin kalbak yaakulak maaxiyaygaagu ha ku cunee yani saxaabada iyo dadkii muslimiintu ka dhigaya dad sidii ayda inta la maaxiyey dabeetana iyaga cunay waa dhaartay baa la yidhi wuxuu yidhi waxaasoo dhan idinka inoo geystay buu leeyahay laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillahi xataa yanfadu war waxba ha quudinay nimankan haddaa marka horeba suuqda ka jari lahaydeen xoolihii inay cunaan baa saalidka ku kitreeya waxba ha siinina haddaydan waxba siinin waxana dhiba iyo rabshadaniba idinkuma soo dhaceen buu yidhi baa la yidhi dabeetana isagoo hadalka sii watu wuxuu yidhi haddaynu dib ugu noqono yani sidee lagu wada nagaadaba maahee lain rajacna ila almadiina layukrijana lacazu minha ladal magaaladii madiina haddaynu ku noqono saare kuwa sharafta leh kuwa dulliyiintaa ka soo saare inagaaba maanta magaaladeeni la yidhahdo hankabaya caynkaas lagu hadlayaa buu leeyahy warkaas buu isku jifiyey isagoo rabo inuu isku diro ansaarta iyo muhaajiriinta saxaabada dhexdooda oo nacraadkii jaahiliga ahaa ama wixii hore qabaa'ilka iyo qudhunqadhaadhkii inuu dib usoo nooleeyo oo u sheegaya markaa ansaartan la fadhida leh waxaasi waa wixii idinkaa isku sababo waxaasoo dhan isu geystay inta wixii ni cunsiiseen oo dejiseen oo soo dhawayseen inay maanta haddana sidaa u hadlaan laakiin majliskan uu waxaan ka akrinayo waxaa fadhiya wiil yar oo saxaabada ka tirsan oo zayd ibnu arqam la yidhaahdo wiilkii yaraa wuu kacay dabeetana adeerkiibuu u sheegay oo wuxuu yidhi maanta cabdullaahi waxaas buu ku hadlaya waxaas buu sheegay riwaayadka qaarna waxay leeyihin cumar buu sheegay adeerkii hadduu sheegana waa sacd ibnu mucaad baan rajaynaya inay yihin calaa kulli xaal waadhi ayaa markaasi nebiga loo keenay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkii cabdullaahi ibnu ubay ahaa oo majlis halkeedu waxaa kaga hadlay oo waxaa maqlayo fadhiyay wiilka yaray zayd ibnu alarqam la yidhaahdo ayaa warkaana ka soo gudbiyo oo soo sheegay majliskii nabiga loogu sheegay calayhi salaatu wasalaam ansaartii iyo dadkii waaweynaaye fadhiyey way yaro gariibsadeen waxaa la yidhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam ciid buu u diray markuu ciid u diray cabdillaahi loo yeedhay iyo asxaabtiisii waliyabillo ka maray inaan waxba odhanin ma anagaa nabiga wax ka sheegnaa waa beentood waxba kama jiraan dabeetana markuu ka dhaartay ayaa saxaabadii iyo dadkii ag fadhiyeyna waxaa la yidhi ninka weyne kuu sheegi maayo been sheegi maayo ninka weyne been sheegi maayo markaa warku markii uu yimi ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam cumar bn alkhataab oo la fadhiya wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo mar far cabaad ibnu bishr hadila kane
dabeetana nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, cumarow maxaad u malaynaysaa dadku hadday ku sheekaystaan nebi maxamed saxaabadiisu laaya hadday dadku ku sheekaystaan? uu diiday markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam in uu dilo. saxaabigii yaraaye zayd ibnu arqamna dee nin weyn oo odayo iyo waxoogaagii la fadhiyeen kani markay isu nacamladeen yidhi waxba muu sheegin, wiilkii yaraa sidii wax la deyniyo kale ayuu noqday oo warkiisii aan waxaan jirin. wuxuu leeyahay markaasaa anigana zayd ibnu arqam baa xadiiska warinaya, wuxuu leeyahay ham iyo muruga ay fuulay oo markii lay rumaysan waaye dee ninkan iyo wixiisiina la rumaystay, anigana weligiiba si aanan u murugoon ayaan u murugooday oo waan iska tego gurigaas ka fadhiistay buu yidhi. adeerkayna wuxuu igu yidhi wiil maa aragta ilaa kadabaka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo maqatay. wiil yar yari wax kale uma socon, wuxuu baa doonaysa inuu nebigu ku beeniyo kuwa cadhoodo soo maha, waxaasoo dhaqan xumaa yani odaygan aragii sii canaantay buu yidhi. oo mar haddii caynka nebigii yeelay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ninkan ina ka dhaaftay, anna canaan baa laygu sii daray buu leeyay. kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey oo wiilka yar alla ku taageerayo subxaana watacaala, oo la tilmaamayo wiilka yari run sheegayo, ninkanina wuxuu waday inay been ahay. waka aayaadka qur-aan soo degeen suurat almunaafiquun, idaa jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llah, ilaa iyo aayaadka tirada badan le ee ninkan iyo qisadiis ka warramaya. ilahay leeya nimankaa munaafiqiintii marka kuu yimaadaan waxay ku dhaaranayaan oo leeyihin ilaahay rasuulkiisii inaad taybanu markhaati ka naqaanay, ilaahayna waa ka markhaati inaad ilaahay rasuulkiisii tay, waxaa kaloo alla markhaati kaya inay beenaalayan yihiin baa alla leeya subxaana watacaala. dabeetana nifaaqa iyo wuxuu sababo iyo waxoo dhan ba aayaadkaasi ilahay kaga warramaya, ilaa iyo la soo gaadsiiye aayaadka hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu walilahi khazaainu samaawaati walard, ilaa alla ka tilmaamaya subxaana watacaala. ilahay leeya waa kuwa yidhi laa tunfiquu calaa man cindi rasuuli illah, ilahay rasuulkiisa kuwa la jooga ha nafaqaynina oo waxba ha siinina, waa kuwa yidhi. ilaahayna miyaanay ogeyn in alla leeyahy subxaana watacaala khazaainu samaawaati walard inay ilahay gacantiisa ku jiraan. waa kaan lasii tilmaamaya inay yidhaahdeen layukhrijana alcazu minha aladal walilahi alcizzatu walirasuuli. wuxuu war sheegay oo dhan sanadaa laga xiray, ilahay baa ka warramay subxaana watacaala. waa kaan la tilmaamaya nimanka kane inay iyagu colka rasmiga yihiin, iyaga la iska do hum alcaduwu faxdarhum qaatalahum allah. waa kaan la ku tilmaamay, waa kaan la tilmaamaya subxaana watacaala waa weynidooda iyo warxumadooda inay iskhilaafsan tahay. kaanahum khushubun musanada, waata ilaahay ku tilmaamaya yani muuqaal weynidooda iyo caynka yihiin iyo warxumidooda ilaahay subxaana watacaala waa ka tilmaamaya. idan qur'aan baa alla soo dejiyey subxaana watacaala oo kaga warramayo nimanka munaafiqiinta iyo meeshay taagan yihiin. dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiilkii yaraa u yeeray oo leh ina allaha qad sadaqaka ya zayd, wiilkii yaraa zaydow ilaahay baa adiga kuu rumeeyo sheegay waxaad sheegaysaa inay run tahay. dhacdadani markay sidaasan u dhacday, qadiyadii laysku hayeyna uu nabigu dejiyey calayhi salaatu wasalaam, maa baalu dacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum, uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, oo uu tilmaamay in laga tago waxa kane inay bakti tahay, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay qadiyadda kan inuu xalilo. qadiyadan mar hadday cadda inuu ninkani yidhi, cumar wuxuu damcay in lagu xalilo dili waxaan munaafiqa waxa kan ku hadhadlaya. berigii hore ninka wixii uu sameeyey waa la wada garanaya. berigii horena wuxuu sameeyey waa dee dagaalkii hore aynu ka soo baxnay uxudna, waa ninkii jebiyey ciidankii ee la baxay 300 nin dib uga la noqday. dabeetana cumar markaas buu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo kan dil oo hebel u dir hadile. nabiguna calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayeen inuu yidhi dacni adrib cunuqa, igu sii daa ilaahu kanaan madaxa ka ilaahay rasuulkiisiiyo kanaan madaxa ka jaray igu sii daa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska dah, maxaad u malaynaysaa hadday dadku ku sheekaystaan berrito nebi maxamed ciddiisuu laaya. yani maadaama islaamku uu soo korayey oo mujtamac yar ay ahaayeen, maadaama ay u baahnaayeen in islaamka iyo samaaxadiisa iyo wanaagiisu inay dadka gaadho qabaa'ilka kaleo diinta lagu soo hegto lasoo dhawaysto, wuxuu nabigu diidanaa dacaayaadka laga faafinaya islaamka. waa in dacaayada ay ka baxdo odhanaysaa wuu xujoobay buu maxamed yidhaahda ayuu asxaabtiisuu laaya, dacaayada inay ka faafto buu nabigu diidanaa calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu ku yidhi maxaad u malaynaysaa haddii la yidhaahdo maxamed wuxuu laayaa saxaabadiisa. qadiyadata nabigu calayhi salaatu wasalaam si kale ayuu markaasi u xalilay.
wuxuu faray in ciidanka la raro wakti aanay guuri jirin ayuu nabigu faray calayhi salaatu wasalaam hala guura buu yidhi goor duhurnimadii baa lasoo dhaqaajiyey baa layidhi maalintii oo dhan socodkaa lagu waday habeenkii oo dhanna socod baa la waday waa la guurayey maalintii dambe galikii hore oo dhanna waa lagu waday goor barqa ah iyadoo aan naf daacigi ku jirin oo la socday maalintii hore gelin ka mida iyo habeenkii dambe iyo subaxii dambe intaaba la soconayay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii meel dejiyey si xadiidkan iyo warkan iyo sheekadiisa o dhan mujtamacu uga baxo loo daalo oo akhbaartaasi ay u listo dadkii iyagoo daalan ayaa markii la dejiyey nin waliba meelu dhinaca dhagunbuu daydayday ila habeenii maalin baa nin waliba soconayay dabeetana waa la wada daatay oo waa la iska seexday nimankan munaafiqiinta ahina qadayaadkoodana wadeen may joojinin oo weli in badan ayay sii wadeen waxaa la yidhaahdaa yani aayaadka meeshan ku jira waxaa kamida wiilkuu dhalay cabdillaahi ibnu ubayi inan buu lahaa isagana cabdillaahi la yidhahdo cabdillaahi ibnu ubayi ibnu sulul la odhan jiray laakiin wiilku wiil iimaan qanjaha joogaa buu ahaa wiil alladii rasuulkiisa rumaysan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo intaad cid kale u diri lahayd ay dili lahayd anigu aan dilo hayna dhaafee kan aniga gacantayda ha ku baxo maadaama uu ilaah iyo rasuulkiisii looga taagi laayay markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska dah oo u samafal aabaha iska daa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo weliba u samafal ayuu faray laa walaakin bir abaaka wa axsin suxbata waxba ha dilin ee aabbaha u samafal oo wanaag u samee buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo wiilkani haddana aabihii u samafalaya waxaa la yidhaahdaa wuu diiday maalintii inuu galo madiina waxaan rabaa buu leeyahay in la ogaado man ilacaz wa man ilzaliil inuu muuqdo ilaahay rasuulkiisa ku fasaxa mooyaane madiina dib ugu noqon maysid buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa casiiska magaalada madiine ka talinaya ala kulli xaal waxaad arkaysaa un dadku iimaanku siduu u kala fogeeyo waa inan iyo aabihii labada halkan kala jooga midna uu nabiga waxaan ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam kan munaafiqnimuun buu islaamka la dhex joogaayo waa kuu sayd ibnu xudayr uu tilmaamayey ilaahay rasuulkiisiiyo buu lahaa kan isaga dulqaado waayo wuxuud magaalada soo gashay isagoo tolkii ay madaxnimo u sallaxeen oo taajkaba la rabo in la saaro ayaad magaalada madiine soo gasho markaa wuxuu u haystaa nimaad kursi ka qaaday inuu yahay ilaahay rasuulkiisiiyo isaga sabir buu lahaa iska sii dah munaafiqiintu dhacdada tan kumay guulaysanin sidii ay u rabeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadii wuu xallilay ilaahayna qur-aan buu soo dejiyey nimankaa munaafiqiinta iyo qadiyadooda uu ku kashifayo laakiin weli may dhigin haddana ee waxay rabeen inay qadiyadan sii wadwadaanuun oo ay qaab kale u dejiyaan weliba meel khataray doorka labaad ka galeen oo ah islaamku waxa koowaad uu ku dhisnaamo uu ku salaysnaa waxay ahayd nadaafad akhlaaq wanaagsani iyo qiyam ayaa dadku ugu soo hiranaya waxay ku talagaleen inay qiyamkaasi siday u burburin lahaayeen inay sameeyaan iyo akhlaaq fiicnidaasi siday u ceebayn lahaayeen qofkii ugu nadiifsanaa mujtamaca muslimiinta oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam walidalik ba waxay markan haddana abuureen qiso labaad oo isla waktigan lasoo guurayay in loo soo socday dhacday magaalada madiine agteeda goor la soo degay ayaa haddana waxaa la rabay ciidankii inay guuraan waktigii ciidanka muslimiintu ay guurayeen in yar ka hor ayay caaisha baxday yani nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa waxaa ahaan jirtay safar hadduu u baxayo dumarkiisa wuu u qori tuuri jiray gaaran safarada jihaadka dabeetana sii nasiibkeedu usoo baxaabaa la safri jirtay oo jihaadka kala qayb geli jirtay doorkan غزوة بني المصطلق عائشة رضي الله عنها أيها لسعتي وانا انتي حجاب كسوة دقي كذب يحاول الدمعي نبي عليه الصلاة والسلام إلا قوره عائشة وحيلا دي وقت إلا قوره هي قهر أيام دبدا وبحي حاجان لها دبدا نوان صوان نقضي مركي عن صوان نقضي يدك في غضي من لحد حبه إلا قورنا وحن وايضا إلا دي عقدي حالنا وحن لغة الوحدة سلسلات أنا أقول وحي حدني وأمانك واحدة ولا شيء نحيد أيام وايبيت تيتنا واحد تلوي تلين تنطق وحد حرمي
dib u noqo balmeeliha soo marmartay soo eego ku shaadiyana soo hesho dib baan u noqday bay ilaahay intii ay kuushii ku maqnay ayay waxay soo gaadhay safarka in neefkii geela ay fuushanayd in la rabo carabta waxaa caada ahaan jirtay hawdaj baha la yidhaahdo oo guri yar ah ayay gabadhu galaysaa dabeetana hawdajkaba inta la qaadaabaa dusha laga saaraa awrka saasaa loo rabaa waa qol yaroo samaysan oo dabada gabadhu marka ku xarooto inta hareeraha la qabto ayadoo dusha laga saaraa waxay leedahay intii anigu aan ku maqnaa bahalkii ayaa hawdajkeedii yaraa loo yimiyo nin qura iyo meelaha hadduu qaadaan ama laba waa la dareemi lahaye koox saxaaba unba hareeraha kala qabato inoo awrkiinbaa dusha laga saaro midna waa jirto caaisha inan yarna way ahayd waxaanay leedahay intii aan hilibku ay foolin bay yani inan yar bay ahayd oo sanadkii shanaad haddaynu nidhaahno ee hijriyada sanadkii tobnaadna meelahaas nebigu ka dhintay ida 8 jir yani marka 3 jir meelahaas ay daadeeda inan aad yar bay ahayd isla markaana carabta caadadoodii hore waxay ahaan jirtay in dumarka la duubo oo dhexda ay bahalya ku geejistaan oo xataa maalin oo dhan dumarku musqulba may qaban jirin habeenkii baabay dabada u yara bixi jireen mara kusa noqon jireen laakiin dareenka markaa sida aanay cunno badan dumarku u isticmaali jirin ama ay u fududaayeen bahalkii yaraa cidiba ma dareemin bay tiriye intay dacallada la qabtay oo dhowrban isugu tagtay ayuunbaa awrka dusha laga saaray dabeetana waa lagu xidhay caynkiiyo baydaba loo jiiday unba la dhaqaajiyey safar baa markaasi loo xidhay waxaan meeshii imi bay leedahay caaisha anigoo soconaya ayaa meeshii imi mise qofba ma joogo ciidanka jedigiisii way guuray waxaana sidhi bay tiri markaasi dee kolley marka meelaha erdhexe la marayo lagu tegi doonaa waa faqadhaadi waxay madalwaayo marin baa lagu dareemiyey ha tegine halka ku siiso meeshii baan iska fadhiistabay tiri cabaar markaan fadhiyeyna way lolooto hurdadun baaba iga badato dhinac baan u dhacay bayla way iska seexatay inan yar bay daahayd waxaa soo baxay markaasi oo ciidanka ka hadhay waxaa jiray saxaabi la yidhahdo safwan ibn mucattal safwan nin saxaabi oo khayr badan buu ahaa waxaana safwan uu caan ku ahaa safwan ibn mucattal as-sulami min aad u hurdo badan buu ahaan jiray yani hidda ahaan reerkooda ku dhashayba waxaynu ka garanaa xadiidkii kale saxiixa waa kii sheegayey safwan waxaa la yidhi beri bay haweentiisu ka soo ashtakooto waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkan safwan la yidhaahdaa 3 arrin buu 3 dabaleey ay kaga ashtakootay salaada subax ma kacbay tiri cadceedda soo baxda mooyaane waxay kaloo sheegtay soonta sunna aana kama soomi karin wayga jabiyaaba jiri waxay kaloo sheegatay markaasi qur-aankana suurada qaar baa haddaan akriyo wuu dilaabay jiray waa markii islaamnimadu ay iska oo ninkani dhawaan buu soo islaamay wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam safwaan baa loo yeelo fadhiyo war bal waran baa layidhi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo tan salaada ay kuu sheegayso reer hebel baa ka dhasho reerka iyagaba cadceed kuleelkeeda oo kiciyo mooyaane mid reer hebel oo kacaba hore looma arag wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad toosto tuko markaad indhaa kala qaadee toosto tuko buu ku yidhi yani waa reer ku caanbaxay bay ahaan jireen hurdaweynidan markaad indhaa kala qaado tuko ku yidhi markaasuu wuxuu kaloo yidhi gabadhan maxaad sooga ilaahay rasuulkiisiyo nin dhalinyaro hadda guursaday baan ahay ma safri karayo iyana soonsoonun bay igu wadaa una aan ahayn tii waajibka ahayd xadiidka kaluu nabigu sheegay markaasi yaa gabadhi ma soomi karto soon tatawaca biduuni idni zawjiha ninkooda haddaan u ogola kii saddexaad baa layidhi maxaad markay suuradahan ku tukato u dishaa wuxuu ilaahay rasuulkiiyo qur-aan badan ma qaybsaniye iyadaa taqaane anigu labadii aan aqaanu bay rabtaa inay iga tukato muslimka oo dhame hadduu ku tukado buu yihi waa ku filan tahay ha ku dilina u tahay muslimka oo dhame hadduu ku wada tukado waxaan xadiiska uga jeedaa waa yani islaamnimadoodii horay tilmaamaysaa safwan ibn almucattal markaa wuxuu caan ku ahaa nin hurdo badan buu ahaa waxaa la yidhahdaa goobaha dagaalka markuu raaco had iyo goor ciidanka wuu ka dambayn jiray waxaanu soo eegi jiray baa la yidhaahdaa meelaha ay ciidanku ka guureen bal wax lagaga guuray iyo waxa jira iyo ragga nooca u qaybsan ayuu ahaan jiray baa la yidhahdaa caaisha waxay leedahay meeshii anigoo iska jiifa ayuunbaa dushayda waxaan ka maqlay qof leh inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxay leedahay caaisha wuxuu ii yaqaanay intaan xijaabku soo walaalayaal
darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay. allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.